بسم الله الرحمن الرحيم مركا هريسا waxaan salaamayaa madaxda qaranka ee madasha ku sugan ee ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ra'iisul wasaaraha ku xigeenka wasiirada iyo xildhibaanada gudoomiyihii hore maxkamadda sare oo ila tartami doona halkan jooga iyo dhammaan asxaabta halkan isugu timi waxaan iyana si gaar ah u salaamayaa ergada maanta aynu martida u nahay codka weydiisanayno ee ah guurtida salaadiinta cuqaasha waxgaradka Soomaaliland ee madashan fadhiya 46 qof oo hanaga noogu jira halkii baarlamaanadu ay gobolada ugu jireen maadaama Soomaaliland aanay goboladan haatan mandaqada jooga kamid ahayn qadiyadeedana si gaar ah loo xidhinay walaalayaal waan soo ururinayaa in la yiraahdo senator Muuse Suudi baa doodihiiba soo koobay oo 2 minuut ku soo koobay wixiisina waa kii soo qaatay marka waxaan rabnaa bal inaan khudbad dheer aan idin gelin aan soo ururiyo saddex qodob baan dul istaagayaa horta ugu horeyn waxaan idin la wadaagayaa aqoonta iyo khibradda aan u leeyahay arrintan aan ka shaqeeyo siyaasadda ah iyo sababta aan uga soo digaroganayo xildhibaannimadii aqalka hoose iyo xubinnimadii golaha fulinta ee ugu ogaan jirteen 4 sano u dambeysay iyo hayaankan cusub ee galay ee aqalka sare waaday asxaab fara badan baa waxay yiraahdeen warniyo halkaas aanu ma islahayn horumar baad ka sameyn kartaa maxaa kor ku geeyay marka su'aashaas ka jawaabaya horta siyaasadda 6 sanaan class u soo fadhiyay inkastoo ta Afrika ka jirta iyo ta laga akhristo jaamacaduhu ay kala duwan yihiin in badan baan anigoo inta ka dhalin yar waxaan ku taabi jiray sidii xal loogu heli lahaa mashaqada dadka Soomaaliyeed ku habsatay oo anigu aan aaminsanahay inay tahay qaran jab ku yimi dadka Soomaaliyeed sida madal hore baan ka sheegay diintooduna waa isku mid oo mushkilad diimeed ma haystaan dhaqankooduna waa isku mid oo ma kala duwana waxay kaliya isku maandhaafsan yihiin cilaaqaadka muwaadinka Soomaaliyeed oo la yeelanayo qarankiisa ama cilaaqaadka muwaadinka Soomaaliyeed badi kaligii ma taagnee isagoo ka tirsan bulsho markaa ama degan ama hayb wadaagta aragtida ay uga qaadanayaan qaranka Soomaaliyeed ma waxay u arkayaan hadhuub caan lagu wadaago mise qori ama kaare dadka lagu muqooniyo halka weeye halka sartu ay ka quruntay aynu ka soo kaban laana waayo Soomaalidu adduunkii markay tageen dawladihii Mareykanka iyo bay qayb ka noqdeen oo dadka xun ma marka qarankeennii baa sixid inooga baahan walaalayaal waayo aragnimo hadda 10 sano ku soo dhow ayaan u leeyahay ka shaqaynta arrimaha masiiriga ah ee siyaasadda ee Soomaalida isku haysato waxaan ka soo shaqeeyay arrimaha amniga la xiriira waxaan wax ka soo yeegleelay in dib loo helo police federaal ah oo aan ahayn kii hore ee qaybta guud laga hagi jiray ee la oran jiray Lowyacado iyo Saylac iyo Kuudha iyo mataqaanay Boorama askariga jooga warka ha u soo tabiyo xamaro amniga halkan ha laga sugo doodaha war la socotaan waxa hadda miiska saaran Soomaaliya inay hesho bilays laba heera oo bulshada u adeegaan lagu caburin inkastoo dhaqangalkeeda ay wax qabiyo ka yihiin arrintaas la isku afkartay laakiin ma ay meel marin weli oo may dhaqan gelin waana qodobada waaweyn ee masiiriga ee dastuurka la rabo in lagu sugo waxaan kaloo ka soo shaqeeyay arrimaha federaaleynta oo aan wax ka soo dhisay galmudug iyo kuwa kale fara badan berigii aan joogi jiray wasaaradda arrimaha gudaha waxaan 2016 garwadeen ka ahaa geedi socodkii lagu baadi goobayay sidii loo heli lahaa hanaan la isku doorto markii la yiri halka oday baa laga guurayaa oo waxba lagu ladhayaa ama lagu kabayaa waxaan ahaa isku duwihii gudidii farsamo ee arrintaas soo dhiraandrisay sanad iyo siyaadana way nagu qaaday hadiiba aan galada iska sheegto qolooyinka reer Soomaaliland ee maanta hadda ku tartamaya 12 kursi waxaan ka mid ahay raggii si mug iyo baaxad leh ugu soo halgamay in 12 ka la helo
xilliyada qaar ay muran gashay oo aan odayaasha halganka wada galnay iyaga soo dhiciyay arrimaha Soomaalidu ay u baahan tahay inay xal u hesho sidaan hore u sheegay waa in qarankii la isla meel dhigo sida uu ekaanayo iyo sida loogu hoos noolaanayo waxaan weli aad ogtiin doorashada inay qaadanayso sanad hadda sidii uu gudoomiye Cabdi Xaashi sheegay sababta dib u dhacaasi u yimi waxa weeye arrimihii matalaada baanay Soomaalidu isla meel dhigin garan mayno hadda annaga shantii gobol ee Somaliland meesha la yiri 12 kursi baa ku filan aqligaasi meesha ka yimi garan mayno haddaanu reer waqooyigaanahay waayo fahamku wuxuu yahay war laba gobol baa beriga hore midoobay bal power sharing ka Somaliland hal iska waraysto waxaan kaloo rabaa inaan xuso waxa aan uga imi fulintu waa meel qofku uu magacaaban yahay barnaamijyo khaasana laga shaqeeyo arrimo everyday operationsna oo mataqaanay maalin hawl maalmeedka badi ku aloosan maadaama aan ka soo jeedo qadiyad Somaliland maadaama ay tahay qadiyad soo jirsatay maadaama ay tahay dalka badhkii wax la warberberi wax lagu qaado ka weyne golal loo baahan yahay afkaarahan si qoto dheer oo banyaala looga doodo golahaas aniga aragtidayda iyo lama muuqdo inuu fulinta yahay golihii shacabkana warkiisa waa hayni waxaan war halkee kale oo arrintan bal loo mataqaanay caymin kara waxa ii soo baxday aqalka sare oo ah golihii la yiri wuxuu matalayaa maamul goboleedyada inkastoo Somaliland aanay ka mid ahayn maamul goboleedyadan haatan wada heshiisyada iyo khayraad wadaagga iyo waxan gala oo aynu ogsoonahay manaafacaadkii iyo anficii laga helayay hay'adaha adduunka iyo dadkii reer Somaliland mushkiladaha kala haysta sababtoo ah wada xajood siyaasadeed baan la helin waxay anaga ila muuqatay markaa inaan u hayaamo oo aan aado aqalka sare halkaana aan doodaha masiiriga ah ee qarankana wax ka galo ta Somaliland miiska soo saaro waxaad ogtihiin Soomaaliya hadda waxay galaysaa dhamaystiraysaa barnaamijkii deen cafiska maalin dhow waxa la oran doonaa 20 bilyan oo dollar baa la gelinayaa waxbarasho iyo caafimaad iyo adeeg bulsho dadkii reer Somaliland haddii ay dabran yihiin halkana aanu dalaal ka jirin dadka way ka harayaan waxa xaqiiqa afartayada halkan joognaa kaliya iyo wadaniin ma noqon karno doodo fara badan baa koonfurta yaallo aniga iyo cajab galiyay mararka qaar kood hebel waa wadan iyo xamar buu joogaa bay kooranayaan war 5 milyan ee waqooyi joogta baanu rabnaa inay wadaniin noqdaane afartan halka ay joogtaa wadaniin noqon mayna kaliya waa doodaha aan rabo inaan miiska soo saaro 5 milyan ee waqooyi ku dhaqan baynu rabnaa xal siyaasi in loo helo ay dhammaantood muwaadiniin iyo wadaniin noqdaan dhowrka iyaga kuna meelahan jooga kuma filin qadiyadda Soomaaliyeed dhamaystirkeeda waxaan kaloo ku darayaa qofka waqooyiga jooga ama Somaliland hadduu rabo adduunka inuu u safro inaan ka yaraayo lagu tabcay ee waxbarashada dhamaystay baasaboor buu baahan yahay baasaboorka uu baahan yahayna waa baasaboor Soomaaliyeed oo la ictiraafsan inuu adduunka ku maro adeeg buu u baahan yahay caafimaad buu u baahan yahay maalin walba qof ay kaliyuhu fadhiisteen oo hargeysa laga soo qaaday halka la noogu keenaa inta aanu waraaqaha u dhamaystirayno ayay in badan ta alle ku timaadaa walaalayaal oo xalalka dadka haysta waa kuwa siyaasadeed kuwaasina in laga doodo oo wax la iska weydiiyo baa loo baahan yahay waxaanu rabnaa dooda in aqalka sare ay ka dhacdo haddaan kaftan yar ku daro jilba culustii reer Somaliland nin walba uu xisbidayay horta kor buu soo aaday meeshii hoose cid looga yimi garan maayo waxa professor meesha maraya waxa janan meesha maraya waa la yaabay aqalkii sare waxaad moodaa sanadkan inuu noqon doono meesha mala Beyla baan u maleynaya hadda inuu soo tafaxiitan ka baqaya wasiir Beyla waxaan ku soo gunaanaday haddii qadiyadda Somaliland madashan maanta waxaan uga faa'iideysanayaa inaan ka hadlo dadka doorashada aan ka sugayo marka uu rabbi inagu sima inuu isugu nimadna sanadka haday taayada noqotana markaasaanu afkaaraha kala soo gudbin doonaa waxaan aaminsanahay anigu baadi goobka iyo helidda Somaliland ku qanacsan qarannimada Soomaaliyeed waa xalkii mushkiladii Soomaaliyeed oo 100% la helay
sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay hal abuur iyo afkaar cusub in la iibgeeyo anigu waxaan aaminsanahay tababarkaygii hore ee xagga cilmi baadhista iyo siyaasadda aan soo bartay iyo waayo aragnimada aan ka dhaxlay 10kii sano hawlahan hadda aan lugta kula jiray inaan dood iyo hal abuur iyo afkaar cusub ku kordhin karo hirgelinta wada xaajoodka Soomaaliland iyo mandaqada wax iska bedelay taa ka sokow guud ahaan haddii la rabo dastuurkii Soomaaliya la dhammaystiro haddii la rabo dimuqraadiyaddan iyo doorashooyinka in salka loo dhigo haddii la rabo federalismkana in la soo koobo waxaa loo baahan yahay golayaal dhammaystiran sida golaha aqalka sare iyo golaha shacabkaba oo ay dood qaran ka dhacdo waxaan ku soo gunaanadaya qadiyadda Soomaaliland sida hadda looga shaqeeyo waxa weeye hadba madaxweynaha markaa jooga ama xukuumadda markaa joogta baa ilaahay wax ku ilhaaminaya iyaga xalinaya wartaas inaanay dhacin in badan baynu u soo joogin qadiyadda Soomaaliland wax nin lagu haleeyo way ka weyntahay wax 25 wasiir lagu haleeyo way ka weyntahay doodeeda waa in miiska la soo saaro kulle anigu 40 sano soo socda baan isleeyahay arinta holli rag badan oo iga horeeyay oo iga cilmi iyo karaamo badnaabaa jira oo 30 sano halkan soo joogay Cabdi Xaashi Cabdullaahi baa ragay naga la sii jooga sababihii afkaartooda ay u hirgeli weeday dib baan u eegnay waxa noo soo baxday in dooda Soomaaliland hal admiiska la soo saaro xagga koonfurtana waanu ka laanahay ilaa hadda champions arinta nala iibiya laakiin annaga codadkayaga markaanu xildhibaan noqonno ku abuuri doona partners arintaasi xaqa nagala shaqeeya dhamaantiin waa mahadsantihiin odayaasha iyo guurtida halkan fadhida ee ergada codsi baan idin soo gudbinayaa haddii aad codka igu helisaan oo halka aad geysaan idimana ceebayn doono xaqinana waan idin soo dhicinayaa